السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان بالله بهيا انت اداوانaysa iyo inta dib ka daawan doonta dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaad hadlaanta Allah inaga aqbalo dambigeena iyo kiwaalkeen baa Allah dhaafo kumayaalka la xoreynaya ee jannada xaggeeda loo wado Allah inagu daro kumayaalka dambigooda la dhaafayna Allah inagu daro inta markaa ka gudbi ogaadaya way ii dambaanaysaa hawl dheer bay u baahan tahay waqti dheer waxaan ku horeynayaa oo hadalkaygu uu ku horeynayaa hadda SSC haddii reerkiina ay la gasho arrimaha khaladyada ah ee SSC dhexdeeda soo maray ama dad uu ku sameeyey la dhashay ama dad kaloo Soomaaliya uu ku sameeyey macnuhu maaha inaan reer nabcahay taas waa afeef ujeeddadu waxaa weeye boogta qofka ku taala haddii aan la dhayin oon hoos laga dhayin korka qolofta laga qaada kuma bogsato hadalka danta aan ka leeyahayna waxaa weeye inaan wax ku tarree oo dad aynu qolyo dulmi wadana ka jooga dhahno qolyo wanaag wadana aynu ku taageerre ee dad inaan wax u dhimayna maaha waxaan jeclahay oon aad uga afeefan hayaa codka gaban baa laysoo qoraya u sugada maqlaa codkayga haddii la maqlahaa ay soo qora iyo ninka haddii uu muuse bulaale haddii uu taa adiga kaa gaaban yahay iyo haddii si fiican la ii maqlaa labadaba waan ku maqlaa ii soo qora waan ku maqlaa bashir waa kaa qaaday ma lay maqlaa haddii lay maqlahaa ii soo qora haddii lay maqlo haddaad maqashaan waan ku maqlaa ii soo qora haa ubax faarax aad baad u mahadsan tahay okay hadalkayga aan hoos u galo waqti baynu haynaa labada arrimoodba waqti dheer baynu qaadanaynaa samra dhegaysta si fiican u dhuuxa hadalkayga waxaanu hadlahayo ee anoo sooman enerjiga aanu bixin hayana waa waxaan u arkay inaan ka adkaysan waayey ciyaarta kubadda marka la ciyaarahayo ninka daawanaya ee bannaanka fadhiya khaladka uu ciyaartoygu gelahayo wuu arkaa ya laakiin ninka ciyaartoyga inuuna khalad gelin inuu aaminsan yahay baa laga yaabaa annagaa bannaanka kala soconna ciyaarta okay tolkay dhulbahantaan la hadlaya dhulbaanta oo aad ii dhegaysta dhagihiinna fura shakhsi walba oo dhulbaanta ha la gaadhsiiyo messajka garaadada ha la gaadhsiiyo saraakiisha ciidankana ha la gaadhsiiyo saqiir iyo kibir gabadh iyo wiil ha la gaadhsiiyo dhulbaante fariintana dhulbaantay ku socotaa waxaan dib ugu yeelabaanayaa oon idin jallecsiinayaa marxalada aad soo marteen dowladdii qaranka soomaaliya marka ay burburtay ee qarannimadii la waayey nin walba aqalkii uu deganaa ama ha u badnaada ama ha u yaraada buu tegey meel buu xadhxaadhay wuxuu yidhi maamul baan ahay reerkiisii iyo dadkiisii iyo carruurtiisii iyo wuxuu u sameeyey system iyo kala dambayn iyo bulshadii adeega iyo waxyaalo nimanka beesha lixaad la yidhaahdo oo anugu aana aaminsanayn oo soomaaliya nimanka burburinaya ee ajnabiga ah dhiil yar oo uu horsado oo maamul hebel dhaqaalihiisii hanala siiyo uu yidhaahdo oo lagu samaysto sangub allah u naxariistay abtigay adeerkayna ahaa sheeko uu ka sheekeeyey yaan dhegaystay sangub wuxuu yidhi maxamed siyaad barre allah u naxariistee baa ii yeedhay wuxuu yidhi dadka waad ka horraysaaye dadka miyaan ku soo gaadhsiiya waad sugi mise adaa dadka ma dadkaan ku soo gaadhsiiyaa oon orodka ku soo gaadhsiiyaa mise adaa u istaagoo dadka waad sugi buu yidhi waa hadal weyn wuxuu yidhi anaa sugahaya adiguna soo kaxeeyo soo gaadhsii ujeeddadaan hadalkaa kale waxaa weeye dadka bini aadamku si wuxuma arkaan waxaa laga yaabaa waxaan ka hadlahaya inay qaar tuur la leedahay dhulbahantow ujeeddadaan hadalkaa kale waxaa weeye waddaniyad wax la yidhaahdo iyo soomaali jacayl baa idin rogay dhibaatada aad aragtay nimanka lagu samaynhayey ee calanka soomaaliyeed lagu dilhayey
ee 500 oo kun oo maatay ah magaalada Laascaanood ay ka qaxday ee 8 boqol xabada lala dhacayay ee dawladda ku sheegtay Soomaaliya ee qabyaaladeysanay ay aayar xitaa ninku hadduu siyaasadda fahansan yahay xitaa nimankii bannaanka taagnaa way soo jabeene intuu soo gooyuu maamul ku dhawaaqi lahaa si awooddooda uu u yareeyo u qabiil ahaan u diiday bay weli Soomaali taagan yihiin ujeeddada hadalkaygu waxa weeye maamaada sangubna aanu soo qaato dhulbahantow waddaniyadda dadka waad ka horraysaane dadka in laydin soo gaadhsiiyo ood sugaysaan iyo in orod laydinku soo gaadhsiiya labada kala doorta taa aan ka gudbo idinka oo Soomaali jacaylkii idinku jiray baad iidoor iyo SNM marka xunba lahayd yaa dhahdeen waxbaa la qaybsanaynaa Soomaali baad aaminsanaydeen iyagana cuqdada inaad ka saartaan baad rabteen laakiin qofka bini'aadamka ah waxa ilaahay ku abuuray nina kama saari karo fi kulli ilaahay maa fiihi yadax lafay siteen reer hebel baana dilay bay u bedeleen Soomaaliya dawladdii dawlad ninkii la dagaalama oo dhan way la dagaashay ma jirteen baa ugu horreeyay wax la dagaalama oo aynu ogeyn oo ceelashooda baraagahooda la suneeyey oo gabdhahooda lagu kufsanayo oo ciidamadii Soomaaliya ay sameeyeen yaa ka horreeyay ma jirin hawiyaa jallo ku lagu sameeyey ogaadeen baa lagu sameeyey waxaa lagu sameeyey iidoor intaasoo qalaa lagu soo sameeyey iyagii marka cuqdad bay qaadeen dadkii nooca ahaa baad Soomaalinimo ula gasheen idinkoo Soomaalinimo wanaaggeeda raadinaya tiina waxaad ka dhaxasheen saddex qodob baad ka dhaxasheen cuqdadii daarood loo qabay ee daarood loo hayay in idinka laydin laayo oo haldoorkiinni iyo cuqaashiinni iyo waxgaradkiinni la halsiibo ya oo maatidiinni iyo carruurtiinni iyo makastiinni xariya inta lagu xareeya daroogada la baro oo dhallinyaradiinni mustaqbalkooda lagu ciyaaro oo qofkii hadla la siibo oo aayar annagu ma aana dilna iyagaa isdilahaya laydin yidhaahdo ma dhici kartaa dawlad baan waddanka u ahay dadka aan anigu dawladda u ahayna ammaankooda ma sugahayo hadda ogaada gabiile iyo berbere iyo burco iyo hargeysa qofkii wax saa u sameeya habeenka waa la soo qabanaya taa macnaheedu waxaa weeye cidda wax leynaysa iyo doorow idinkay ahaayeen okay aan gudbo wax walba adduunka ku nool iyo dhibaato kastoo adduunka dhacdana waqti bay leedahay dhibaatada waqti loo adkaysan karay leedahay xad bay leedahay waqti waxaa jira qofka bini'aadamka dhibku markuu ka bato laba qodob ay isu qabanayso ninku markuu nin raga yahay laba qodob ama geeri ama nolol taa macnaheedu yahay dhibka adiga lagu geystay in aad geeri ka doorato ama aad dhibka ka baxdo waana ta dhacday dagaalka Laascaanood ka bilowday maxaa kalifay dheriga ya karka maxaa ka keena kuleelka dheriga haddii dabka lagu shido wuu kari kadibna wuu buliso maaha qofka bini'aadamkaana xumaantu hadday ka badato marka u dambaysa wuxuu ku talagelahayaa laba qodob buu mid ku talagelahayaa akhira inuu kaciyo inuu gobonimo ku noolaado labadaasuu kalifahayaa haddaad aragto shakhsi iska nool oo dhib baa igu dhacahayaale weli dhibaatadu ma ayna taabanin dhibku waa inuu shakhsi walba meeshiisa ugu tago waana ta ku dhacday dhulbaante iyo SSC okay maxay kaliftay dhagax la tuuray garaadadii oo yimid xabad in la bilaabo in la yidhaahdo in la isdhaarsado oo la yidhahdo dhulbaanto waxaanu mayna wadahayaa maya ma soconaysaa maya laba option baa inoo taalla inaan baaba'no oo sidan ku gumowno oo gudnimadan qaadanno iyo inaynu dhammaanno iyo inaynu waxan ka baxno saddexdaa qodob baa inoo yaalla kaan dooranayno waa inaynu gudnimada ka baxno waa qodob rag wuxuu isku ogyahay calaha duurkeena canaan ma keeno waad go'aansateen go'aan geesinimo lahaa marxalado badan buu soo maray marxaladaha badan ee uu soo maray geel ninka la joogaa lagu dilaaye idinkaa buddhiga oo ahaa idinkaana laydinku dilay cadkii iyo qodobkii aad lahaydeenna waad qaadateen oo ahaa inaad wax bilowdaan daarood garab buu idinku siiyey ciidan ahaan
wixii aad ka rabteen daarood ilaan iidoor iyo urur soomaali iyo isuma dhigmaan dhulbahanta kama aydaan helin haba u sii badnaada cidda anugu aan ka dhashay ee daarood marka la yidhaahdo ama kablolax laandheerihiisa ah ay ogaadeen ahayd kama aydaan helin laakiin dhaqaale daarood dagaalka garab buu idinku siiyey xogaha aan hayo annagaa isku filana noo kaadiya inaad dhahdeen in badan oo aad ogaadeenka xiriir lahaydeen baan hayaa ood idinku inaad ku filantihiin iidoor aad aaminsanaydeen haddana aad aaminsantihiin aad ka yara dhabayseen dagaalkaas inaad dhahdaan noo kaadiya waddo aad idinku joyce aad doorateen bay ahayd harti wixii idinka iman karay ya waa idin yimid dhaqaale ahaan laakiin daaro dagaalka waa wada galay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wajaahiduu fii sabiili illahi biamwaalikum wa anfusikum nafta la bixinaya qofku uu naftiisa hurahaya waxaa laga horraysiiyey maalka sababtoo nafta maba bixin kartid dee maalkaad ku dagaalami dahay haddaad haynin waa lagu talagalay taana daaro dagaalka waa idinku taageeray okay laba jaanis saddex jaanis baad lumiseen saddex jaanis sheekada marka aan wado mid walba waktigiisaan idiin sheegi doonaa jaaniska koowaad weeye kaasu baan idin dhihi doonaa nimankii waad jebiseen dagaalka waad ku jebiseen waad midowdeen hal far baad noqoteen kuwii la socday qolada ee iyaga la socday baad xabad isha barti kala dhacdeen jaamac siyaad oo jili maxamuud garaada oo dhulbaanta ah baa ugu badnaa nimanka jiray xagga isaaqa oo ina cambaasha uu hogaaminhayay ciidan ahaan marka la yidhaahdo xabad baad kaga saarteen laascaano cidda ka saarteen jaamac siyaad bay ahayd waxaad garanaysaa meesha qofka bini aadamka uu gaadhay iyo fikirka iyo go'aanka uu qaatay rag wuxuu iska ogyahay cadhaha hadduuna keenin canaan ma keeno go'aan la qaatay buu ahaa jaamac siyaadna fartaa ku godnaydoo idinka iidoor wata ee wiilashiina macna u keenaa la yidhi waajibkoodina way guteen bal hadalkayga aad u dhegaysta waajibkoodiina waa guteen fiibo qujaahitay usha le dhacaysa kaga saaraysay okay dagaalkii 8 bilood socday rag badan oo media ka hadlahaya oo dagaalka inaan la qabanin meeshantada lug weyn bay puntland ku lahayd hagelina ukaadiya mujaamalayn baa jirtay media kale waan arkay laakiin anu kuma dambaabi karo okay dagaalkaas anigu waxaan aaminsanahay mar anigu nin hadalkiisa qarsada mayi harti baa tihiin oo ma jarteenaya dhulbaanta waa walaalo laakiin anigu waxaan aaminsanahay allaankana aaminsanahay siyaasiyiinta reer puntland inay caqabad ku yihiin maamul khaatumo la yidhaahdo oo aynan raalli ka ahayn mana ayna qarsanin waana qodobaynaya hadalkayga onlef waan ka hadlayaa ciwaanka la soco sug onlef ka hadashahay waana laba qodob baan ka hadlayaa waan tegi doonaa hal la gaadho onlef waktigeeda isagoo kuwa onlef ka hadlay laho halkaa idhig waana qodobaynaya hadalkayga dagaalkii uu dhulbaanta ku jiray ee gurmadka uu majarteen sameeyey ee puntland ka yimid laba qodob buu ahaa laba qodob laba macnuu lahaa gurmadkii majarteen uu soo fidiyey dadku iskuma jiree dadka shacabka uu hiil walaaladooda ay u hiilinayeen oo dhiig ay u bixiyeen qodob buu ahaa oo ay ku talagaleen oo suldaan garaase aynu lahayn oo leh ha la gala dagaalka oo ha la difaaco dhulbahanta iyo tolkeen laba qodob buu ahaa hiilka ka yimid puntland laba qodob buu isugu jiray mid siyaasiyiinta ah oo dani uu ku raadinayo kursi oo ay aaminsanayeen siyaasiyiinta reer puntland in ay ka mid noqonayaan khaatumo isaguna uu ku soo noqdo waa qodob qodobkaa inta aana dhaafinna waan caddaynayaa 3 jeer oo garaadadu ay rasaasu inta yaraatay loo tegey warqadu ka saxiixday dani uu yidhi
in la ii codaynayo ha la ii saxiixo marka wuxuu aaminsan yahay khaatuma inay puntland tahay oo siyaasiga puntland saasuu aaminsan yahay allaankana way jirtaa liq horta kenin ku liq haddaad adigu qabyaaladaysan tahayna aday ku taalla laakiin waa inaad liqdid 150 baatiina ma sheergaraysaan taa waa qodob waa siyaasiyiinta qodobka labaadna wuxuu ahaa shacbiga ma jirteen keli amehe shacbiga mj ama puntland degan ee daarood oo ma jirteen awooddiisu ay ahayd oo nafta u huray dhaqaale iyo dhiigba shubay anugu hadalka kama siraysto labadaa qodob buu hiilka ka yimid puntland ahaa okay dagaalkaa dhulbaantow aan ku soo laabta tobigaygii waa lagu kala calaf qaaday guul baa ilaahay idin siiyey 500 oo gaari oo tiknika ah iyo 500 oo nin oo maxaabiis oo raggii garaacaya laascaana baad ka qabateen qodobka koowaad ee mistake aad samayseen qodobka koowaad khaladka koowaad ee samayseen maalinkiina waan sheegahayay laba gobood tii calool nugul baa jabta raggu hadduu ishayo ninkii calool nugul baa laga guulaystaa taas waa qodob maalinkii aad jabiseen qodobka koowaad ee khalad aad samayseen burcaha haddaad dardartaan hal qof oo idin hor istaagi karay ma jirin which is the first mistake burca inaad aru gaadhaan oo dulmi samaysaan ma aanan rabin laakiin magaalada gabayga iyo taariikh dhulbahanta oo iidoor uu ka dhigtay ee caynaba inaad istaagtaan oo caynaba oo la yidhi 60 jirka iidoor 60 jirka dhulbahantay iyo 20 jirka iidoor baa isku miyirdiisan la yidhi oo taariikhdeeda shalay ahayd inaad gaadhaan oo baysku uu noqdo caynaba anigu waan rabay waa khaladka aad samayseen aragtidaydaan hadlay birkuma aana goynin laakiin garaadada joojiye ciidanka waxu bixeerinayeenoo waxay islahaayeen nimankaasu waa dad soomaali ahe dhulkiina haddaad ka kaxaysateen dhulkiina iyagu ma rabaan taasuna ma ahee waxa lagu socdo ee iidoor uu socday ee uu taagan yahay annagaale weeye laascaano hadalka in la caddeeyaa fiican naftaada iyo maalkaaga iyo dhulkaaga nin ku socda dee waxaad wax karatana waa khalad waa inaad naftiisa iyo maalkiisa iyo dhulkiisa ku socdo taasuu mistake ba ahayd laakiin waxaan aaminsanahay sababa urinay jiraan waa qodobkii koowaad ee khaladka ahaa taa waa laga soo gudbay haddii maalinkaa dagaalkaas uu socon lahaa daaroodna waa idiin heelanaa kayskaasuna inkasta oo uu socday wuxuu ahaa jaanis laga faa'iidaysan waayey laakiin dagaalkii waa yar qaboobay gaadagaadi iyo meelo in xabado mar ka dhacday iyo mar in la saliya buu u rogmay taasaa waxay keentay daarood inuu yacnaha jaaniskii in uu yar gabaabsiyo haddan hadda la joogo wiilashu hadda qaski meel lama tegin dad badan oo idinka mid a dad badan oo idinka mid a waxay aaminsan yihiin ciraa qabsanaya ciroo inaguma socdo garxajiska xiriir baynu lahayn dhegaysta dhegiina fura anugu iidoor inaan nabcahay oon iyaga u jeedana maaha isaaq marka la yidhahda ninka muuse bixi la yidhaahdo dowlad iyo kursigu ilaashanaya laakiin dhulku idinkuma haysto laakiin cidda daarood aan arki karin ee cuqdada ku jirta waa garxajis ee ka xun oo ciraa ka xun liqa kaninka sidiisa oo liqa taana waa inaad ogaataan taa ka soo gudub cira tallaabadii koowaad u qaaday dagaalkii maalinkii dhowe dhacay aan ku soo laabto dagaalka maalinkii dhowe dhacay maalinkii arrintaasu ay dhacday ee xildhibaanadii dhulbahante uu deni qortay ee deni loo magacaabay ilaa maalinka maanta furfuris iyo burburin baa ku socda dhulbahante ninka in adeerka ah liqdada hadduu kuu didana ha dhintuu ku leeyahay lexjarada hadduu kuu didana ha dhaqdu ku leeyahay waa maamaa soomaaliyeed maskaxdaydu hal way ku mashquushay siyaasiyiinta ma jirteen dhulkan kada la qabsan hayay ee siciid harti ama dhulbahante waktigii la qabsan hayay
iyaga iyo heshiis iyo door way ku ahaayeen haddii ay leeyihiin puntland baa tihiin in ay difaacdaan ba xaq loogu lahaa oo ay difaacaan ay u dagaalamaan oo dhulkooda difaacaan ma ayna yeelin dhulbaantaa ku dagaalamay cidda dhibaatada ku dhacday dhulbaantay ahayd cidda dhulkooda la haystay dhulbaantay ahayd haddii aad aniga ay sheeganayso oo aad leedahay walaalaynu nahay walaaltinimadu ma afka in laga sheegto hiilkeeda waa inaan kaa helo wanaaggeeda waa inaan ka arko inaaday xagildaacinayni waa inaan arko maalinkaa laga bilaaba ilaa maalinkaa maanta ah dhulbaanto furfurid baa ku socota nimankan tolkeena m j waxaa la dhaha waa siyaasiin lakin anigu waxaan aaminsanaya siyaasadda inay meel ka taagayihin cidla ah sawaana qodobaynaya hadalkayga idoor calmiskaad waxa sameeyey dadka lagu leynaya iyo dukumentiyada aad qabateen idoor baa ka dambeeyey oo dhulkiina kusoo duulay dhulbaanto in adeerkiinu ay dagaalamahayaan intaad ka boodeen baad idoor ula heshiiseen oo idoor siyaasiyiintuna ay u taaniyadeynayaan oo dani uu yahay ninkii koowaad ee idoor cero u taaniyadeeyey waxaan hayaa oon idiin caddaynayaa oon idiin sheegayaa 150 qof baad ku jirtaan reer galbeedka nimanka la yidhaahdo inay dani dhaheen al-shabaab adaa la dirirahaya soomaaliya madaxweynaheedaan kuu rabnaa oon ku geynaynaa isdiyaari 12 kun oo ciidanana diyaarso war hadalka in la baro in la seefo soo maaha 12 kun oo ciidanood xamar la tagtana diyaarso madaxweynaha soomaaliyana adaan ku wadnaa adaa al-shabaab la diriraya xasan waanu ku khasaaray ya 12 kun oo m j dani mehelahaya maya sababta loo furfurahayo ee wiil walba oo ciidanka oo fulinta jooga $1 baa lagu siinhayaa ka soo taga nagaad ciidan noo noqon loo leeyahay 12 kiiba horta dani diyaaranaya waa aniga xogaha laysiiyey hadday dambi noqoto ka fuulaan iska saaraba oday adeerka laga sheegay islaantiisa intay hadal u sheegtay buu yidhi hadaloo kaasu waa xasan bidde hadalkaasu run mahalay markaasuu yidhi ka fuulaan iska saara hadduu been noqdo islaantiisa lu dhihi jira hadduu been noqdo waa wararka aan hayee hoose laakiin anigu ma inaana goobjoogahayn ma ahayn jawaano lacagaa la keenay lugatoor ninka la yidhaahdo niman dhulbahante gudunay haddaan gabalkay kugu jir wuxuu yidhi dani anugu dowladda federaalkaan u socdaa meesha adaa madaxweyne ka noqonaya dhulbahante ken jijabi dhulbahante kiintaala lacagana waa loo dhiibay war hadalka in la caddeeyo soo ma fiicna ya hadalka in la caddeeyo soo maha cero waxay isku og yihiin madaxweynaha soomaaliyaan u socdaa xildhibaanada waqooyi galbeed ka soo socda ha i codeeyeen cero wuxuu yidhi waan kuu codaynayaa dhulbaante gacanteeda soo geli labada arrimood oo dhulbaante aan kala qaybsanno labada arrimood baa lagu heshiiyey waa xogaha anigay soo gaadhahaya okay gudunay haddaada adigu igu jirin haddaan gabalkay kugu jirin imaada goyseen ninka dhulbahante rag garabkaaga laga dayaabaa layi ninka dhulbahanta ee biyaha dhulbahanta ah ee 5 kun oo curyaamiin iyo naafa ah oo dagaalka dhulbahanta lagu xoraynayay ku dhaawacantay oo maanta aan rajo lahayn ay joogaan dhulkiisa iyo gurigiisa ninka dhulbahante ee 10 kun ee agoonta ee aabbahood ay u shahiiday dhulkooda inuu dulliga ka dulqaado og maanta ee reerkanaga aniga reerkiina ha la gumaysto oo gudnimadii ha ku laabta ee carruurtaada ha la gumaysta ee aniga carruurtayda difaac yeelahaya habeen ma una jirin isaga guna war hadalku macad yahay ya ninka dhulbahante ee aaminsan carruurtannada kaalay difaac lugatoorow carruurtiinana ha la qabsado ha la gumeeyo oo daroogadii iyo dullinimadii ha lagu soo celiyo hal su-aal baa ninkaa weydiin lahaa lugatoor ha la gaadhsiiyo waa nimanka dhulbahante puntland ku jira ha la gaadhsiiyo ee iimaanka allah ka qaaday
hala gaadhsiiyo saaka haddii dhulbaanta la qabsado oo dhulkooda la qabsado ma waxaad aaminsan tahay puntland inay adiga sharaf ku hayso maya wallahi been waxba ku hayn haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane hagarle wax ugu qabo hantiyey macaan waa midaan hooy laga odhane waxaan leeyahay dhulbahanto waxaan kusoo gebagabaynayaa dagaalka ka dhacay buuqdharkayn maalinkii dhawey nimanka ku go'ay jaamac siyaad bay ahaayeen ee ugu badnaa ciidanka meesha joogay iyo barkad iyo khaalid waa xogtay soo gaadhay hal nina ma dhibaana ku jiraan u malaynayaa geel ninkii la joogaa lagu dhex dilaa nimanka jaamac siyaadow weliba ina jabuuti waayo farriintaydan ha gaadho ilaahay baan idinku dhaariyey qofkii facebook iyo ina jabuuti u gaadhsiiy ina jabuuti ow wiilashaa jaamac siyaad ee la laayey ee meesha cidlada inta loogu yimid 3 gaari oo teknika haysteen baa lagu yidhi anigu waxoogaa waanayaa ciidan dhan oo meel fadhiyo 3 gaari oo teknika haysta maxay isku difaacayaan waxba 25 gaari oo teknika ah iyo 22 kale adiga iyo ninka jaadka isku haystay baa kala baxay maalinkii la ogaaday inaad kala baxdeen baa la leeyahay nimankan aan baabi'ino ya maalinkii la yidhi baana la yidhi adoo nin jaamac siyaada wiilashii dhufayska ku jira ilmaadarrada saaka in la laayo idinkuna aad jaad isku haysataan oday riboodka la cascaanayo jaad isku haysataan qodhaa xerada waa ceeb ya waa ceeb ya kontomeeyo gaari oo teknika abaad ka saarteen furinta jaad baad isku haysateen magaalada la yiraahdo oo 2 dhufis ku kala jirteen laakiin su'aasha aan weydiinay waxa weeye hal su'aal baa meesha ay taala ninka la yiraahdo firdhiyo waxa tahay madaxweyne khaatumo waxaadna tahay nin dhulbaanta waxa tahay nin maxamuud garaada waxa tahay nin jaamac siyaada tahay garaadkii jaamac siyaad baa jooga oo ina garaad ismaaciila garaadadii dhulbaantaa jooga ma labada wiil ee jaadka isku haysta baad kala saari weydaan wadaayar gaadiidka ku celiya furintooda aad dhihi weydaan ya taas aad dhihi samayn weydaan taasuna waa guldaleelo kale oo ii muuqata okay dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal la qorsheeyey waqti dheer laga shaqaynayay xog la siiyey naaga la qabo oo isaaqa oo dhulbahanta uu qabo oo weliba jaamac siyaad qabaa soo xogta bixiyey xogtan ayaanu waxaa loo sheegay inaan meesha teknika joogin waxaa la sheegay gaadiidkii inay isku haystaan jaadka waxaa la sheegay ciidan yar oo jaamac siyaada inuu meesha u badan inuu joogo qorshuu saasuu ahaa okay dagaalkanu dagaal laga shaqeeyey buu ahaa ciro wuxuu damcay hubka dhigis inuu ku sameeyo habar jeclo waxay dhahan buuqdharkayn horta loo qabo qorshuu wuxuu ahaa buuqdharkayn in la qabto dagaal laga soo shaqeeyey oo urur samaale iyo dir u dhan tahay buu ah xaqiiqdu saas ahayd ramadlaan kariim dagaalkaas dadnimo ay leeyihiin iyo calool adayg iyo khibrad dagaal ay leeyihiin bay wiilashaasu ku dagaalameen kuna difaaceen taasaana waxay kaliftay hankii in la beeneeyo lana jabiyo idoor 6:35 in the morning dagaalkii bilowday oo subaxii ah maqribka ayuu soo dhammaaday waana eedeen taana halkaa idhi dhulbaanta waxaan idin leeyahay mistaagii koowaad wuxuu ahaa caynaba idinka oon gaadhin oo idoor 9 bilood uu dhulkiina garaacaya inaad istaagtaan halkaa that was the first mistake second mistake waa kan kada qabsada marka qodobkii labaad ee khaladka aad samayseen waa kan haddii maalinkii dagaalku laga saaray gooja cadda idoor ilaa maalinkaa maanta ah furfurada ay idinku socotay siyaasiyiinta mj ay idiin adeegsanhayeen lacag wiilasha baahan laga faa'iidaysanhayay dagaalkii ciirgaabo ee aynu ogeyn ee laga saaray harti ee maatidoodii iyo carruurtoodii bannaanka ay joogto
aynu ognahay warsageli markuu dani u tegay inuu yidhi puntland calankeeda haddii laga taagahayo un baan ku dagaalamayaa meeshaas oo uu yidhi calmiskaad aan ka soo laabanno oo aynu ognahay furinta calmiskaad in la furay markii la ogaaday in ceergaabo dagaal laga bilaabaya taas oo connectionka xidhiidhka uu ka dhexeeyey cerre iyo deni si dagaalka looga mashquuliyo ceergaabo mar anigu hadalka ma qariyo okay waxaan ogahay geelan media nin la yidhaahdo oo wariye ah oo majeerteena yaa saa ka arkahayay isagoo hadlahaya wuxuu leeyahay dhul aan lahayn facilitigii dadku u baahnaa baa la isku laynayaa ninka majeerteen ee calmiskaad ka dagaalamahayo waxaan ku weydiinhayaa calmiskaab oynu arkaynay buuraha intaad ogeyd leekaa ee lama degaanka ahaa iyo buqdharkayn iyo yeyle iyo yagoori iyo laascaano iyo ceergaabo facility dadweyne kee leh hadalkaa yaa nin reer bari ah yaa arrin uu qaadan waaye lagu yidhi markaasuu wuxuu ku hadli kara waaye ilaahay baa wax kaa odhanayo yidhi hadalka aad ku hadashay ilahay baa wax kaa odhanaya calmiskaabna waa lagu dagaalamahaya oo facility bay leedahay nugaalna laguma dagaalamahaya iyo hawd oo facility dad ma laha taana ilahay baa wax kaa odhanaya okay taa intaan kaga gudbo jaariska labaada idin sheegay jaariska labaada dhulbaanta idin sheegay haddaan idin sheego intaas haddii laydin furfurahayo oo aad ogeydeen daarood baad ahaydeen dagaalkana daarood baa idinku garab taagnaa garaadada dhulbaante ninka la yidhaahdo firdhiyahalka aydhig ninka la yidhahdo firdhiyahalka aydhig garaadada dhulbaantow hal baan idin leeyahay soomaalidu waxay dhahdaa xoolahaaga rag waa lagu dhibaadiyaa laakiin xaajadaada laguma dhibaadiyo haddii aad aragteen tolkiin mj siyaasiyiintiisii meesha ay marahayaan iyo in aynan idinka in laydin baabi'iyo mooye wanaaggiinna aynaan ka shaqaynaynin haddii aad tihiin niman daarooda oo kabla lahaa maxaa idiin diiday gogol daarood inaad dhigtaan maxaa idiin diiday waxa laydinku samaynaya inaad daarood u bandhigtaan maxaa idiin diiday daarood inaad wax isku ogaataan maxaa idiin diiday kosaar garow ha loo wada joogaa la yidhi idinka iyo siyaasiyiinta majeerteen inaad wax isku ogaataan oo daaroodna xogaan idiin ahaado hadda waa qayb dagaalka ka mid oo ragga la yskaga celiyo ninka haddaad u yeedhatoo dhahdo maxaad ugu dilaysaa dhulkaygii baad difaacanayaa waad ila dhalatay dad baad ii xigtaa maxaan kugu sameeyey maxaad in lay dulaysto u jeceshahay war daaroodoo ilaa arag haddaad dhahdo maxaa kuu diiday maxaa idiin diiday taa anigu waxaan idin leeyahay gogol dhiga garaadada dhulbaantow gogol dhiga gogosha aad dhigaysaan daaroodu yeedha waxa laydinku haya u soo bandhiga daarad ha idin la ogaado daarad ama wuu idinka qaban ama wuu idin raaci ya daarad ama wuu idinku raaci oo wuu idinla safan oo waxbuu idinkala qaban waxa idin haysta ee goonida idiina eed hoosta iska qaniisan tihiin ee idinku socda ee furfurka ah ee dhibaatada ah ee baabi'inta ah ee idoor soo dhowaynta ah ama majeerteen baa geed lagu xidhi ama waxa aad rabtaan iyo wanaaggiinaad helaysaan war xoolahaagu ama xeraha ku galayna maxaajaha kugu jireen gogosha waa qodobka labaad ee misteegay aan dareemahayo u yeedha daarood gogola dhiga maalinkii laascaano ay xabadda ku socotay gogol daarood baan dhigaynaa baad lahaydeen daarood gogol u dhigta ma soconaysa siyaasiyiinta majeerteen daarood waxay ku samaynayaan weligeed inay iska socoto raggu waa in wax iskaga ogaado daarood waxay heerkan kada keenayna waa taa daarood waxay heerkan keenaya waa iska aamusa iyo waa dhaqankooda iyo sidanay yihiin war nimankan kado ama daarood gooniha looga saaro oo gooniha ka noqdeen oo daarood gooniha isagu wax kale ha iska kaashado ama daarood sax ha noqdeen oo waddada daarood ha mareen oo daarood waxay dhiba ha dhibo anigu ma aqaana hadalka leexleexiyo
idinkana intaasaan idin leeyahay garaadadow waa laba mistake soo maa mistake saddexaad ee dareemaya waxaa weeye nin walaalkii ii hiili yidhi hoga laabaday ma maqashay haa waa arrin jirta laakiin dadka bini aadamka ilaahay adduunka ku abuuray laba qodob bay u kala baxaan xoolaha geela marka la lisayo hasha toojada ah geel ninkii yaqaanaa yaqaaneen hal waxaa jirta marka ay saa dhiilka loola galo caa bilowdo qalaca ninka ku bilowdo labada ninba haragay ka qaniinaan geesay u boodo markaysa way iska istaagin base u cabaadayso dadka qaarna ulkumaal buu leeyahay qaarna aqli kumaal buu leeyahay haddii daarood idiin soo gurman waayo dhulmaantow haddii waajibkii saaraa iyo waxa ay idin arkaan ay idiin iman waayeen anu waxaan soo dhawaynayaa oon leeyahay waa mistaag kale oo la sameeyey gogol dhigo daarood gogol daarood dhigo daarood dagaalka inu idin la galo oo dagaalkan kada uu daarood galo oo daarood ama ay idinku dayriyaan oo iidoor laydinku dayriyo iidoor iyo idinka iyo irur samaalaa dagaalamaya laydin dhaho ama daaroor idiin hiiliyo waxaa jira wax isku ogaada ya anugu saasaan aaminsanahay aynow inaad isdifaacaysaan aynow inaad ka adag tihiin laakiin wiilasha dhimanaya waa laydinla qaybsan lahaa dagaalku nagu soo afjarmina dagaalka daarooda hadduu noqdo ma socdeen ya anugu fikirkaasaan leeyahay aynow qaar baa iisoo qoraya dhulbahantannimadan aan aaminsanahay waana wa inaad aaminsantihin inaad laakiin wiilasha dhimanaya qoys buu ka baxayaa 300 oo wiil maalinka markaa maanta dhimato 300 oo jilib oo daarooda markii loo qaybiyo idinkii door waad surantiin dersna waatiin laakiin wax maalin aad qabsan karto inaad kugu gaadho sanada khalad ujeedada meeshan ka imanaya inaad fahantaan isku day saddexda khalad baan tirsanayaanu taan ka gudbo waxaan idin leeyahay dagaalka ii door wuu eeday boqorkayn boqol iyo 60 iyo dhowr baa dhimashada aniga la ii sheegay 8 ay saraakiil tahay ninkii iswaalahayay balaayo ninkii raadiya ee balaayo doono wuu helaa ninkii buur madow ahaa ee dagaal baa dhulbaanta naga dhexeeyada hayay iswaalahaya reerkoodii way reerka go'ay aqliga bini aadamku inuu shaqeeyana waa muhiim waa bil rabadlaan waxaan la yaabay laakiin arrintan qaadan waaye maskaxdayda ka weynaatay bil rabadlaan oo jamca iidoor wuxuu islahaa nimankan waa niman daarooda iyagu idin weerari mahayaan waxbana idinka filan mahayaane waqtigan aynu ka faa'iidaysano laakiin ninka ku dhintay waqtigaa meesha ee daalimka ahaa ee soo duulahayay ee nin miskiino meel iska fadhiyey ya soo weeraray ilaahay baa wax oranaya reer barigu saasii dhihi jirna ilaahay baa wax kaa oran taana halkaasaan kaga gudbahayaa 250 baatiin inaad ii sheergaraysaan ood gaadhsiisaan aad baan u jeclaan lahaa toobigayga sida aad ka aragtaan kiliibkan wuxuu ku socdaa ilmo baahtimaacad waa dhulbahante iyo ogaadeenow waxaan ku soo koobahayaa laandheerinimadiinnu wax macanoho ay leedahay ma jiro wax macanoho ay soo kordhinayso ma jiro nimanka tolkiina nimanka dad u xiga ee daarood la'ah ee harti la'ah waa dhuma jirteen dhibka ay maanta ku jiraanna qaybta ugu weyn dhulma jirteen baa leh ya wiil adeer loo waayey abtima loo waayey ma maqashay haddii la waayey mj oo hartinimadii ay shaqayn weyday ya waxaan idin leeyahay dagaalka 2 sano socdo ee deriska aad la tihiin ee qorilugud keli ah aad degaanka xabadda aad maqlaysaan maxamed subeer nimanka la yidhaahdo oo reer saaq iyo reer cabdille iyo makaahilba way maqlayaan xabadde aad maqlaysaan ee aad aayar sidii kashitadii godshimbireedka ku jirtaan waa arrin laga dhinta wey
waa arrin qofka bini aadamkaa taabanaysa waa arrin mustaqbalkaaga taabanaysa waa arrin dhiiggaaga iyo dadnimadaada taabanaysa waa arrin guurkaa gabadh waa ah landheerihii kablalaxna waa tihin walaalna ninkii yaqaanaa yaqaane walaalka aabbaha ninka u dhalaya ninka hooyada aad isku tihiin ka hooyadaad walaala tihiin arrintaas waa idiin taallaa si kastana waan idinla hadlay ya waan israacin baa dhimaneen ma israacin kartaan dagaalka ma soo afjari kartaan 10 kun oo wiil haddaad dirtaan saaka burco waad dardari kartaan qoodhin iyo xeradin wax gurnimo aa jira isxilqaan baa jira ya ogaadeenku waa gabaasay gabadha ha u dhiibin ha guubaamin rag waa garaacyo shaydaane miya weligaan iyo allahen miyaan hurdaynaa aakhara markii adduunku rogmada miyaanu kici doonaa ilmaad harayaal ya war ilmaad harayaalo war si kasta idinla hadlay war damiir yeesh war dadnimo yeesh war dhalashaa la isugu helayaa war dhiig baa la isugu helayaa war dhalti baa la isugu helayaa ya qoodhin iyo xeradin nimankaa cadowgu isugu tegey ee urur samaaroo dhan dagaalka kula jiro ee tolkiina ee aad u xigtaan ee ooda aad u xigtaan ee dhalasho aad u xigtaan gaarsiiya oqaasha iyo waxgaradka ogaada gaarsiiya arrintaas intaasaan kaga gudbahayaa SSC maxaa ii soo hadhay aad ha la iila dhegaysto qodobkan kada khaasatan ogaadeen wixii ahow waxaad gaadhsiisaa oo ballan ilaahay iyo axdi aan kaaga dhigay ya ballan waxaan kaaga dhigay oon axdi oon kugu xidhay inaad gaadhsiiso siyaasiyiinta ogaadeen inaad gaadhsiiso dhallinyarada ogaadeen inaad gaadhsiiso wariyaasha ogaadeen inaad gaadhsiiso waxgaradka ogaadeen dibad iyo daakhilba inaad gaadhsiiso taasu waa kugu qaan waa qofka hadduu u dhashay gobolka ogaadeen waxaan gelahayaa onalef baan gelahayaa ilaahay bini aadamkan markuu abuuray 3 macno iyo 3 caqli iyo 3 marxaladood buu qofka bini aadamka caqligiisa ka dhigay qof waxbaa loo sheegaa qofna isagaa wax sheega qofna waxbaa loo diraa bini aadamka 80% ama 70% 80% wuxuu u badan yahay waxa wax loo sheegay isagoo aan wax keeni karin laakiin aan ka fikirin aan fikir keenin laakiin wixii la keeno talakeen iyo tala raac talakeenku waa qofka maskaxdiisu ay kuyugiisu 100 ka tahay tala raacuna waa qofka arrintaa taageera ogaadeen dhagiina fura 1948 ilaa 52 sisef area ogaadeen waqtiyada Ethiopia loo dhibay ilaa waqtiga iyada dagaal baa ka socday gobolkeena taariikh dheer baan rabaa inaan ka sheekeeyo dagaalka ka socday ogaadaya inagu inaga imanayay dagaalkii 77 ee siyaasadaysnaa ee dawladda Soomaaliya oo reer galbeedku dana gooni ay kala haayeen maxamed siyaad barre isaga fikirkiisu muxuu ahaa dhul Soomaaliyeed baa maqanay xore laakiin siyaasado badan baa inuu dhex jiray oo kale kuwaas oo reer galbeedka Russia iyo Mareykanka isku haystay wadanka dawladda Soomaaliya Russia ay xiriir la lahayd Mareykanku ninka aan ogeyn taariikhda aan haynin oo fiiri waa kuwan ku sheegay kuba hadda wuxuu soo qoray reer Cabdillah reer Isaaq waka dadka inaan wax u sheegan rabo waka halkaas ay taagan yihiin